qof walba oo horumar sameeyay adduunka caalamka sameeyay ama aad higsanayso aad jeceshay in adiga noqoto qofkaasi noloshiisa waxa ka bilaabatay damac iyo wax loo yaqaan goal setting inuu sameystay oo ah goal setting kaas oo ah qofkii inuu higsado wuxuu raadinayo soo maanta halkan waxaan kugu tusi doonaa step by step sida goal setting u sameysan lahayd maadaama sanadku u dhamaaday sida adigu sameysan lahayd si aad hadafkaada u gaarto mustaqbalka 2024 walaal soo dhawow magacayga waxa la yiraahdaa Daahir halka waxaan ka qaadanaa real estate investment fix and flip Airbnb arbitrage ama wax loo yaqaan taxi loopholes ama wholesaling ama side hustle inshallah soo dhawow hadaan ugu cusub tahay soo dhawow inshallah soo flow garee videoada hadii ka bataan 2 daqiiqo badan waxaan soo dhigaa YouTube-kayga halka ayaa ka daawan kartaa waan ku bilaabayaa marka koowaad waxaan ku bilaabayaa faa'iidooyinka ay ku leeyihiin inaad ogaato marka goal setting sameysanayso midda koowaad waxaan ku bilaabaynaa wax loo yaqaan clarity of purposes oo ah qof bilaadanka waxay inay ugu cadihiin wax cad ay yihiin waxay ku cadihiin in madow kaaga jiraan way dhib badan tahay waxay ku cadeynaysaa waxa kale ku ogolaanaysa wax loo yaqaan prioritization of resources waxaad ogaanaysaa energy-gaada iyo waqtigaada meeshaad galin lahayd taasoo ku ogolaanayso hadaa rabto waqti inaad maanta gym-ka aado waqtigaas aadaysa waqtiga la caruurtaada la qaadanaysa waqtigaas nafsadaada gelinaysa tan kale waxa ku ogolaanaysa wax loo yaqaan improve decision making go'aankaad qaadan lahayd ayay ku fududeynaysaa soo iskama noqonayso qof iska subaxdii soo kaco kale oo wuxuu sameeyaan garanayna wareersan oo maganas jadwal baa sameysanaysa jadwalkaas ku ogolaanayo noloshaada dhan maalintii waxa ku saabsan tahay ogtahay tan kale waxa ku ogolaanaysaa wax loo yaqaan increase confidence oo kalsoonideeda ay dhisaysaa qof bilaadanka mabda uu leeyahay meel uu socdo garanayo kalsoonidiisana way dhismaysaa maadaama ogaatay goal setting wuxuu fiican yahay hadda waxaan ku bilaabayaa saad adigu u sameysan lahayd soo mid koowaad waxaan ku bilaabaynaa wax loo yaqaan smart goal setting ah midda ugu horeyso smartka ereyadan waxaan ka bilaabaa wax loo yaqaan specific weeyaan soo go'aanku xawayaan aad qaadanayso waa wax loo yaqaan marka goal set garaysanayso waxa way inuu adiga specific ku yahay ama wax adiga gaar ku ah inuu yahay soo hadan ka soo qaado kale marka sameynayso kale hadaa rabto aad dhado inaan weight loss gareeyaan raba 2024 kale hadan ka soo qaado kale taasi waxa loo yaqaan vague oo ah wax oo specific maaha ilaa ka daarada waxaan rabaa inaan lose gareeyo 30 pound inaan lose gareeyo raba 2024 ha that's specific waa si gaar ah u tahay taasina soo dadka qaar waxay dhahayaan waxaan rabaa inaan save gareeyo lacag $10,000 ah ama hadaa rabto guriga iibso down payment oo kale soo taasi inta sameyn lahayd wax specific ah ka dhigaysa waxa leedahay waxaan rabaa bil walba inaan save gareeyo $833 inaan save gareeyo hadaa doonto wasi wax loo yaqaan breakdown ku sameyn kartaa wasi jabin kartaa waxa u qaybinaysaa $833 waxa u qaybinaysaa 4 week wigi inaad save gareyso $208 taasi waxay ku tahay inaad very specific way go'aankaasi aad samaysay goalkaas aad gareysatay waad ogtahay haddana waa wax aad sameyn kartaa $208 oo waxa save gareyn karto laakiin 10,000 da ka fikirto waad ku waalanaysaa waxa ka fikirtaa waxa nambarada hoose okay so waan ka soconayaa qaybta kale wax loo yaqaan measurable waaye oo qayb kamid ah taas waxay weyn ku cabiran yihiin waxa wax cabiran waay cabiritaankan waxa weeyaan waa inaad track gareysaa oo ah waxay dadada maanta aniga inaan goal baan set gareystay waxaan rabaa inaan save gareeyo wigi $208 aan save gareeyaan rabaa so wigi markii la gaaro wigi u dhamaado lacagta ma save gareysay ma save gareysay okay hada example ku si lacagta saving ka soo baxda let's say that in a track drive tahay oo kale for example waxa rabtaa nolosha inaad bedesho laakiin nolol kale aad gasho aad ka badaxdo so waxa ka soo qaaday waxa rabtaa inaad save gareyso 60,000 inaad save gareysto rabtaa 60,000 darab inaad save gareysto waxa uu qaybinaysaa divide by 12 ba dhahaysa 5,000 inaad save gareyso ay u baahan tahay laakiin 5,000 waa lacag aad u badan inta ka fikirto waxa uu qaybinaysaa afar u qaybinaysaa weekina waxa isku day inaad save gareyso $1,250 inaad save gareyso ku diyaysaa so taasoo ku ogolaanayso hadaa rabto inaad noloshan ka baxdo oo like xirfad kale aad barato nolol kale aad gasho ama caruurtaada waqti la qaato waxa doonta ku sameyso ama ganacsi kale aad sameysato oo like hadaa rabto let's say waxa rabto inaad iibsato like future inaad iibsato so an amount waxa u baahan tahay like let's say 80,000 u baahan tahay 100,000 nambaradan jajabi wigi inta aad inaad save gareyso u baahan tahay waxa u qaybsan divide by 12 de then divide by 4 nambarada ku soo bixi doono inta save garee hadafkaadana week walbana track garee la socdo meesha wax ku marayaan so hadaa track gareenin adan dadka qaar waxa sameeyaan weekly progress waxa la sameeyaan oo weekly sameeyaan dadka qaar waxa sameeyaan monthly dadka qaar quarterly fiiriyaan so waa weekly iyo bishi iyo 3 bilood mar baa fiirinaysaa so haddana goalkaas aad gareysanaysa wax loo yaqaan achievable waxaad haygsan karto ma tahay hadaa rado buur baan dhaqaajinaya buurta ma dhaqaajin kartid laakiin waxaad ku bilaabi kartaa qooditaankeeda ayaa bilaabi kartaa so hadaa ka soo qaado wixii hadaa dhado
waxaas aan rabaa inaan helo wixii wax oo attainable goals inay yihiin ba loo baahan yahay oo ah wixii inaad heli karto oo ah inaad iska dhahdaalto like haddaan hadoo kale aniga haddaan waxaan rabaa like millionaire inaan noqdo kalaan rabo taasi macquul gal ma aha adiguna waad ogtahay aniguna waa ku ogahay waxaad markaasi aad samayn karto sanad gudihiisa wax badan kuma samayn kartid laakiin meesha jihadaad u jeedo ayaa bedeli kartaa jiha kale ayaa aadi kartaa okay haddaan kasoo qaado kale maadaama lacagan ka hadlayno achievable goal kan haddaan hadoo kale waxaan save gareynaya like let's say waxaan rabaa inaan save gareeyo kale waxaan dhahday like 500,000 aan save gareynaya haddaad ogtahay like shaqo ma ka shaqeysaa waa isleedahay isweydii shaqo ma ka shaqeysaa 500,000 ka samayso business ma leedahay 500,000 soo saaro haddee ahayn that's unattainable ma samayn lacagta kuma soo gelayso been qiyaal haskugu sheekeenin ilaa haddii rabto like inaan dhahdo like by next year waxaan rabaa at the end of the year inaan shaqo helo 100,000 so then waxaa samaynaysaa number one skills kama haysata inaad isweydiiso there's only 3 things inaan fiirso loo baahan yahay bilaadanka qof walbo bilaadan caalamka adduunka saddex ayuu hayaa saddexdaas oo ah wax loo yaqaano time oo waqti buu hayaa qofka qof qaarna skill buu hayaa qofka qaarna wuxuu hayaa wax loo yaqaano treasure oo ah oo lacagti buu hayaa so saddexda midkood baa haysa adiga أنا متك هاي سما قرنا عذيقة قفل بوحبد بوهايا so متك هاي سو أداد هينين أداد وقت بدن هاي سو دن حرفدنا برتين غنسا أداد حرفد هاي ستنا وحدو شقين كرتا قفك treasure هاي ستو أو دقالي هاي ستو so goal kasta garaysanaysa wax aad samayn karto inuu yahay so haddana waxa loo yaqaan relevant inuu yahay waaye waa inuu ku saabsan yahay waxaad raadinayso adiga oo like hadaf ay higsanayso haddaad rabto inaad lacag samayso then goalkaada waa inuu ka mid yahay qaybta lacagta ku samayn lahayd iyo sida ku gaari lahayd taas so haddaan ka soo qaado kale lacagtan ka baxno aan xiriir aadno haddaad rabto kasoo qaaday truck driver ku laabanaya for example haddaad rabto waxyaalaha kugu muhiimsan noloshada yihiin qoyskaada oo kale inay kugu muhiimsan yihiin waxaad samaynaysaa waxaad isku dayaysaa inaad waqti la qaadato caruurtaada inaad aad dalxiis u kaxayso caruurtaada inaad caruurtaada noloshooda aad la socoto meel waxbarasho ha noqoto ama haddii kale ha noqoto taa kaliya bas ma waxaad isku samaynaysaa waqtiga inaad la qaadato gabadha xaaskaaga so taas hadday kugu muhiimsan tahay adig kugu muhiimsan ay tahay goolka aan kuu sheegay hadda hadaad soo garaysato taasi waxay ku ogolanaysaa inaad waqti la qaadato caruurtaada laakiin wax walba aad samaynaysa inaad relevant weynay yihiin ama they have to align with your goals waxa markaa rabta aad samaynaysa weynay yihiin haddana waxa loo yaqaano long term objectives waxa la jiraa oo ah wixii aad rabto hadafka maanta kaliya bas maaha ee mustaqbalka kalena wax ka caawin doona yihiin waxana samaystay haddana wax loo yaqaan in loo sameeyo baahan wax loo yaqaan time bound oo ah waqti cayiman in loo sameeyo in waxana deadline inay leeyihiin waqti dhamaanayaan haddaan ka soo qaado inaas 60 kun samaysto inaas baartana samaysto by January hadaa bilowdo December lacagtan way haystaa 60,000 kaasi wayna sagrastaa taana waxa ku ogolaan kartaa inay sameeynin markaa track race every week waxa ogaanaysaa meesha marxaladaada ay marayso laakiin hadaa track racing ما ogaan kartid the best way wax walba horumar aragto inaad samayso adduunka caalamka waa inaad track race like hadaa rabto if you want to lose weight you have to track your calories somehow when like waxa cunayso like calories ina ogaato every week so waxaan ka wadaa every day waxa cunayso ina ogaataa then hadana every week every like twice a week ina scale ka aado aad fiiriso ina weight lose garaysa in kale if you gain hadana ina calories si kat garaysa the same concept why the financial hadarto lacag ina samayso like I don't know real estate investment aniga sameeyaa so hadarto ina sameeyo like so hadarto ina real estate property investment ka sameeyo the first thing I sameeyo like you run numbers numberada fiirinaysa like what is the NOI what is the cap rate what is the cash flow what is all those things ana fiiriya qofka wax kale uu fiirinaya so waxa muhiim ah wixii inay deadline leeyihiin waxa aad sameyn lahayd haddii meel ay ka bilaabanayaan email ay ku dhamayaan lahayn waa ku daalaysaa you just run cycles ku wareegaysaa waa ku dhamaanaya meesha so muhiim waaye waa inaad samaysaa so haddaan ku soo gaabiyo wuxuu dhan ku soo dhameeyay hadda goal setting-ka waa waxa kaliya hadafkaada ku gaari karto waxaan kugu darayaa tan qof bilaadan oo ku soo socdo oo ku badbaadin doono ma jiro literally hadaa sugto qof bilaadan nolosha ku dhamaanaysaa waxa raadinaysa kaliya maanta go'aanka qaado samee hadaa sameyn waaso yaa sugaysaa yaa ku soo socdaa cid ku socdo ma inshallah waan ku salaamaya hada video ka inshallah hada badana waxaan filayaa in halka ka daawanayso YouTube inuu aadi doono qiyaasaya hada YouTube ka daawanayso subscribe inshallah waan salaamayn badan assalamu alaykum